barakaatu saxaabi kusoo dhawaada cashir cusub oo aan halkan ka soo jeedin doono insha Allah maanta cashirkani mostly word study wax la yiraahdo ama barashada erayo gaar ah waaye erayada kalarka guduudan ee dhamaantood waa erayo cusub waxaan isku daynaa erayada cusub inaan dhex gelino jilmad ama statement marka insha Allah dhageysi haboon new words meeshan waxa inoo qoran new words with a simple sentences alaga rabaa with a simple sentences new words with a simple sentences waan garanay pain aku qoran pain waa xanuun halkan pain waa xanuun I am anigu feeling waxaan dareemayaa a lot of pain in the body jirka xanuun badan ayaan ka dareemayaa wealthy waa hanti the business people dadka ganacsatadii have been looting eragan looting waa dhicitaan ama boobid have been looting waxay boobayeen community wealthy for the last 30 years oo dhahay the wealthy and waa hanti the business people dadka ganacsatadii have been waa waqti dheer eray soo jiray have been so they have been looting waxay in badan soo biliqaysanayeen ama soo dhacayeen a community wealthy for the last 30 years soddonkii sano u dambeysay ganacsatadu waxay soo biliqaysanayeen ama dhacayeen hantidii ummadda powerful awood badan powerful waxaan dhahnay shakhsi awood badan powerful leader hogaamiyihii awoodda badnaa has killed wuxuu dilay ama laayay an innocent people dad dambi la'aan ayuu laayay ovan waa agoon ilmaha agoonta ayaa waxaan aabbaha lahayn ayaa waxaa la dhahaa ovan this ovan jaal ilmahan yar ee agoonkii needs wuxuu u baahan yahay much care daryeel badan ayuu u baahan yahay dhaynaa situation waa xaalad the situation xaaladda is not well today xaaladdu maanta ma wanaagsana situation xaalad baan dhahnay marxalad ama xaalad the situation xaaladdu is not well today maanta ma wanaagsana suffering waxaan dhahnay wax la dhibaataysantahay qof xanuun la dhibaataysan qof baahi la dhibaataysan qof ammaan darro la dhibaataysan qofba wax uu la dhibaataysan suffering Somali people dadka Soomaalidii are suffering from way isla socdaan suffering from waxay la dhibaataysan yihiin insecure condition xaalad amni xumo ayay la dhibaataysan yihiin dadka Soomaalida waa garanay liberation waa halgan liberation maxaan dhahnay halgan Somali was waa halgan ama tan laakiin xorriyad ahaan bay ugu jirtaa wixii loo soo halgamay Somali was liberated waxay xorowday Somali was liberated from the colonial in 1960 dabcan gobollo ka mid ah Soomaaliya ayaa xilligan xorriyadda qaatay waa garanay care we must care about our people and country care waa ka taxadarid we must waxaa waajib inagu ah to care about inaan ka taxadaro our people dadkeena and country dadkeena iyo dadkeena inaan ka taxadaro youth waa dhalinyaro ereyga dhalinyaro youth aa la dhahaa Somali youth dhalinyarada Soomaalidii must unite waa inay waxaa waajib ku ah inay midoobaan to overcome si ay uga qaalib noqdaan the challenges marxaladaha haysta ee dhibaatada ah waa garanay political group kooxa siyaasadeed political group in Somalia gudaha Soomaaliya waxaa jira a different groups kooxa kala duwan having kuwaasoo leh different ideology kuwaasoo kale leh ideology waxa weeye waa aragti different ideology aragtiyo kala duwan an interest wuxuu dhahay political groups waa kooxa siyaasadeed in Somalia waxaa jira different groups kooxa kala duwan having leh different ideology aragtiyo kala duwan and interest aragtiyo iyo dano kala duwan interest waa dano aragtiyo
iyo dana kala duwan leh ayaa ka jiro dhay. Delegate waxaan dhahnay waa wafdi. The delegate wafdigii arrived way soo gaadheen in the town at 2 hours ago. 2 saacadood ka hor ayay soo gaadheen magaalada. At 2 hours ago, 2 saacadood ka hor. President madaxweyne. Who is the current president of Somalia? Su'aal iska macruufa. President waa madaxweyne. Who is the current president of Somalia? Madaxweynaha xilli xaadirkan ee Soomaaliya waa kuma? Represent waa matalid. I'm representing from a country that wadankayga ayaan matalaa waaye. The president madaxweynuhu represents wuxuu matalaa. President represent wuxuu matalaa the whole nation affair. Arrimaha wadankoo dhan ama arrimaha qarankoo dhan waxaa matala madaxweynaha. The president madaxweynuhu represent wuxuu taagan yahay ama matala the whole nation affairs. Arrimaha wadanka qarankoo dhan. Nation waa qaran, affairsna waa danaha qarankoo dhan ayuu matalaa. Agaran intaas ayaan ku daynaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.